wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyada Soomaaliland Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qambi uu heliyo duqa caasimada Soomaaliland ee Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soltelko oo maanta shir jiraad ku qabtay gudaha xarunta wasaaradda howlaha guud iyo guriyada ayaa ka hadlay fariin u diray dadweynaha degan agagaarka madaxtooyada cusub kuwaas oo uga digaan inaanay wax guriyo dabaqi ama afooqiya laga dhisi karin goobta laga hirgelinayo madaxtooyada cusub. Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soltelko ayaa ugu horreyn sharaxaad ka bixiyay goobta ay bulshada uga digayaan ay isla markaas ka socoto dhismayaasha madaxtooyada cusub iyo waliba dhismayaasha ay diidan yihiin dadka degan dhismaha cusub ee madaxtooyada laga dhisayo hareeraha degan qodobka koobaad oo ah in 500 oo mitir dhinac walba aan laga dhisi karin wax fooqa usoo ogaadaan degmada ay khusayso Koodbuur iyo dadweynuhuba. qodobka labaad oo ah galbeed wixii ka xiga inta dib u nashqadeyn cusub lagu sameeyo inaan wax dhismo oo ka dhici kara aanu jirin iyadoo hawlaha guud iyo dawladda hoose ay sameeyaan inay dib u nashqadeeyaan. waxaan leeyahay dadweynaha oo arrin dhibaato badan way jirtaa laakiin samarka loo qaato intaasi dhaqsaana oo dhameyn doona insha Allah taala. Geesta kale wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyada Soomaaliland Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qambi ayaa isaguna xusay wadada gasha madaxtooyada cusub oo na sheegay in ay dib u habeen lagu sameyn doono wadadaasi. sidoo kale waxa uu wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyada uu raaciyay hadalkiisa adiidiyo degan agagaarka wadadaasi isla markaasina cabasho ka soo saaray sheegay in ay cabashadaasi og yihiin isla markaana wax ka qaban doonaan cabashada dadyogaasi ka soo yeedhay ee ag degan wadadaasi madaxtooyada gasha agagaarkeeda. wadada madaxtooyada soo galaysa ee ka imanaysa gaafane iyada lafteeda waa la hagaajinayaa oo haddii wax ka qaloocan yihiin waa isku beegaynaa taana dad baa ka cabanayay marka sida ugu habboon baanu iyadana u saxaynaa marka dadweynaha degan aaga degmada Koodbuur ee dawladda hoose waxaanu ogeysiinaynaa inay sidaa la socdaan wax dambe oo laga oranayo qabiyihiina ma jiraan intaas ayna ugu dambaysa intaana annaga iyo dawladda hoose sida ugu dhaqsaha badan baanu idin fulinaynaa. cabasho way iman kartaa waxayna ku iman kartaa horta dawlad meel walba oo amri baa jooga dhulkana dawladda mas'uulka haddana iyadoo saas jirto dadweynaha wixii dhulka ay sheegtaan dawladdu wuxuun bay u qorshaysaa wixii dan guudana waa ka goysaa waxayna u egtahay dadweynuhu inay dawladda xukumaan marka dhibaato aanu geysano oo xukuumaddu geysataa way yar tahay waayo haddii la isticmaalayo xaqiiqda waxay ahayd inaan dadba dhul sheegan ninku meeluu falay ceel ka qotay guri ka dhistay wax kale ka samaystay inuu sheegtay ahayd laakiin imika waad aragteen dadkii dhulkii iyaga leh oo ilaahayba uga sokeeya oo la annaga leh haddana dawladdu kuma faragelisay wixii ay ka dan guud loo gooyn karo baa looga gooyaa dhul aan beer ahayn oo ceel ahayn oo dhismo ahayn oo ay ah baa dadkii leeyihiin annaga leh madaxtooyada lafteedu ay bay ahayd haddana waxaa jirtay oo markii dhawadna aan ka booday dadka dhulka sheeganayay ilaahay ka sokow sheeganayay ee dawladda ka sokow sheeganayay madaxtooyada uu ka galay dhulkaasi maanaan dadafayn waan ka booday markii dhawayto wixii uu ka galay dhul in faylashoodina waa yaalaan dawladda hoosena waa og tahay annana waa ognahay dhul bedel inaanu u samayno oo waxoodii u dhamaystirno yaanu u ballan qaadaynaa wixii loo celinayo xaqiiqa loo cesho dadkana jirabaad kale iyo si kale midna looma geysto waxay ahayd meesha madaxtooyada laga dhisayaa madaxtooyaduna dalka oo dhan bay u dan tahay. Samaal Cabdi Axmed Karinle Kalsan TV Hargeysa.